كينا تاق درن تاغيرا ولجين كينا تاق درن ما هم مد حق حوق حق عيدنك حق كل شيء كينا حق فكرك يا درنك كل تعطينا تاغيرنا وين تاغيرنا ما أنت وحنا ربع مرك هل كان إن هنبليو وقدروا ورالكي مدحوينها دولة وقوي بن عبد القادر أحمد أو علي فردية إيو مدحوينة كحجينك أبوان عبد الرشيد يوسف جبريل إيو قدوميها قراها وكيلة الدكتور آدم عبد الله أو حسن إيو قدونك قراها وكيلة إنتي سكالبا سيدا سوكالي ضدك شرفت له مناسبة وين سوية مذي أي أوه الريان أما هرمودك أي أوهين جرادة odayaasha dhaqanka boqorada suldaanada garaadada odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada iyo culamaa u diinka sidoo kale waxaan hambalyo leeyahay guud ahaan ciidamada amniga ee waqooyi bari ee suurto geliyay nabadan inaan ku xafladeyno oo aan ku dabaaldegno suurto geliyay maanta waxaan halkan ka cadeynayaa in waqooyi bari ay tahay dawlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa oo kale waa dawlad goboleed buuxda hadii la yiraahdo oo xubin ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka cadeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dawlad goboleedyada kale ee dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna hadda wixii ka dambeeyo u istaagaysaa dib u dhis horumarin deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka saacidaysaa maamulka cusub dhinaca amniga iyo deganaanshiyaha deegaanada waqooyi bari waqooyi bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda iyo wadajirkeeda ummadda Soomaaliyeed waxaad halgan dheer u soo gasheen oo aad saldhig u noqoteen midnimada dalka oo aad wax badan u hurteen inaad xaqiijisaan waa taariikh qormaysa iyo fariin aad u diraysaan kuwii u shahiiday xorriyadda iyo kuwii naftooda u huray midnimada dalka jiritaanka iyo horumarka dawladda waqooyi bari inta ay xambaarsan tahay oo in dhimatay in noolba macna ugu fadhida waxaan halkan ka cadeynayaa inaan dunida iyo dadka Soomaaliyeed u xaqiijiseen inaan Soomaaliya aanay kala go'i karin waxaad halkan fariin uga diraysaan anna aan idinku raacsanahay idinla dirayaa Netanyahu oo dhulka reer Falastiin boob ku haysta hor istaagsan dawladnimada reer Falastiin dunida dhan ay aqoonsatay waxaan cod dheer ku leeyahay marna suurtagal ma aha in Israa'iil ay samaysato Soomaaliya dhexdeeda dawlad furisa istaraatiijiyadeeda guracan suurtagal ma aha istaraatiijiyooyinkaas guracan inay gobolkan ka hana qaadaan ama dawlad Israa'iil wakiil uga noqota u shaqeysa sidii ay ayadu rabto suurtagal naga ma aha dabcan sida ay rabtana waa dhammaanteen Netanyahu waxaan leenahay dadkii waa diideen arrinta dunida oo dhanna waa diiday damacaaga guracan waxaan leeyahay gobolkan ma aha meel si qasab ah loogu soo raro dulmanayaasha reer Gaza ee guryahoodii la dumiyay dhulkoodii la qaatay inta kalena qaato la raba hadda sidoo kale ma aha meel loo soo raro colaadda gaamurtay ee bariga dhexe
ka soo jirtay muddada aad iyo aad u fog walaalayaal waxaan leeyahay maamulka waqooyi bari waxaanu idinku garab istaagaynaa sii wadidda nabadda iyo dib u heshiisiinta oo ay ugu horeyso isweydaarinta maxaabiista ku xiran labada dhinacba oo dhan kasta xurriyadda wiilasha Soomaaliyeed ee dhan kasta ku xiran cudurdaar looma haayo si xirnaantooda sidaas daraadeed dawladda federaalka waxay u istaagi doontaa idinkuna garab siin doontaa cid kasta oo danaynaysan ay garab ugu tahay in wiilashaasi xurriyadoodii ay dib u helaan meel kasta ku xirnaadeen ee siyaasad xoogaa qocatay u xiran waxaan u mahad celinayaa reer waqooyi bari sida ay nabadda ugu heelan yihiin waxaan rajaynayaa inay helaan cid la nabadowda nabadday u heelan yihiin cid sidoo kale nabadda u heelan in ay helaan ayaan rajaynayaa siyaasaduna waa halkeeda oo waa mar kasta midnimadoon inaan wada nahay kulligeen